24 Maarch waxay ku beegan tahay maalin si weyn looga dabaaldego dunida maalinta qaaxada munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegay maalinta qaaxada adduunka ayaa ka qabsantay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Salebaan Ciise Xagle Toosiye iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo hay'adaha ka caawiya dhanka caafimaadka wasaaraddaasi waxaana mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadlay ay tilmaameen cudurkani sida loola dagaalamo isla markaana bulshada ay ku goobaabiyeen in goobaha caafimaadka ee qaaxada lagu baadho ay yihiin qaar bilaasha iyo dawooyinka ay dadku qaataan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hay'adihii ka caawinayay wasaaradda caafimaadka la dagaalanka qaaxada hadalladoodii ka mid ahaa sida tan We have been able to partner with World Vision Somaliland in being part of these steps forward. In Somaliland, and Honorable Minister, I'm very happy to report. At the very heart of where the most vulnerable populations reside. It gives me great pleasure to be. siyaasadda wasaaradana waxa weeye shanta sano soo socda in ugu yaraan 50 xarumood uu dalku leeyahay dawada iyo dhakhtarka intuu waa bilaash iyo baadhista xarumaha TB-da dalka oo sidoo kale waxaa munaasabadani isaguna guntiga gabagabadii soo afmeeray wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Salebaan Ciise Xagle Toosiye isagoo ahmiyadda ay leedahay maalintani qaaxada ee adduunka looga dabaaldegayo una tilmaamay in gobolada Somaliland qaarkood laga dabaaldegayo munaasabadan awgeed isla markaana guntiga gabagabadiina waxa uu xariga ka jiray isbitaallo cusub oo ka dhisan 6 gobol isagoo ku sababeeyay xariga daafurka isbitaalladaasi cusub inay u suurtageli weyday xaaladda abaarada ee dalku hadda ugu jiro iyagoo helaya dawo tayo leh oo bilaash waxaan kaloo socdaa farmasiyada iibiya dawooyinka TB-da waa sharci darro inaad iibisaan waa sharci darro haddii la idinku qabtana xukuumaddu tallaabo adag shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba shacabka in ay noo soo sheegaan haddii ay la kulmaan cid iibinaysa dawada TB-da tallaabo waan ku qaadanaa waan uga digayaa farmasiyada qaar baa hadda aan ognahay waan ku daba jiraa tallaabona waan ku qaadanaa sidoo kale waxaa munaasabadani isaguna guntiga gabagabadii soo afmeeray wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland mudane Salebaan Ciise Xagle Toosiye isagoo ahmiyadda ay leedahay maalintani qaaxada ee adduunka looga dabaaldegayo una tilmaamay in gobolada Somaliland qaarkood laga dabaaldegayo munaasabadan awgeed isla markaana guntiga gabagabadiina waxa uu xariga ka jiray isbitaallo cusub oo ka dhisan 6 gobol isagoo ku sababeeyay xariga daafurka isbitaalladaasi cusub inay u suurtageli weyday xaaladda abaarada dalku hadda ugu jiro oo inta shaqeeya shaqaalihii jooga qalabkii la dhigay bilaabay shaqada abaarta darteed way noo suurtageli weyday inaanu meel walba tagno oo furo oo abaarta ayaan ku mashquulsanay marka maanta halkan ayaynu ku xusaynaa inaynu shantiiba ay furan yihiin marka xadhigan ka jirno shanta xarumood waxay kala yihiin waa rugsi ولود قدمة بيعص لفت فرق ويرد يو عالقال وشن تحرم